waxaa ka sheekeynayo Marco Verratti taariikhda waxay ahayd 2013 wixii dhacay wuxuu ku bilaabay waxaan la ciyaarayay Barcelona lugta labaad 2013 waxaa jirtay xan ah in uu Messi kulanka dambe uusan ciyaaraynin waa lugta labaad uuna dhaawac yahay tababarayna ma uusan weydiinin wax su'aal ah ama hadal nama uusan dhihin inta aanan ka ahayn Barcelona line-up-keeda ma lagu dhawaaqay Messi ma ciyaara حتى عيارتويدا isla su'aashaas ay ayaga isweydiinayeen oo tababaraha weydiinayay aniga laftirkii nafteeda waxaan u leeyahay waxaan rajeynaa in uu Messi kulankan uusan ciyaarin kadib ciyaartu way bilaabatay waxaan dhalinay gool anaga ku faa'iideysanayna fursadeena oo dhahay si lama filaana waxa gadaashiina ka yeeray khaylo gugac buuq iyo sawaxan aad u weyn sida in uu gool dhashay oo kale qof walbana wuxuu bilaabay in uu qayliyo kadibna waxa indhahayga uu qabteena ma aan arkay Messi oo isku leenayo dibna isla markii wadnahayga wuxuu ii sheegay Messi hadirtaan oo na burburina wana baabiina oo dhamaanteena bodo iyo baaba noo daari doona kadib Lucas Moura ii soo dhawaaday asagoo ku dhahayo waxay u qaylinayaan ama u baldegayaan sida in ay gool dhaliyeen kadibna waxa uu sheegay goolka hadduu imaan doona goolka la sheegayo hadduu bilaaban doona waana sababtii u dabaldegayaan kadib waxa bilaabatay in uu Messi garoonka uu soo galo waqti badan ma aysan qaadin isla markii wuxuu bixiyo leeyahay caawin wayna naga barbareeyeen goolkii wayna ka faa'iideysteen fursadooda dhamaadkii ciyaarta markay dhamaatay ciyaarta waxaan weydiiyay Ibrahimovic su'aal ah waay ee kubadda uu fududahay Lionel Messi Ibrahimovic ayaana ugu jawaabay Messi waa kan ugu wanaagsan adduunka kubadda cagta